بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحلقدي لباد حلال ميردك. حلقدي هره waxaynu kaga soo hadalay waraca ama xalaal miiradka iyo wuxuu yahay iyo fawaaidkiisa iyo darajooyinka ay ku leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waxaynu soo aragnay in uu yahay waracu ama xalaal miiradku min a'la maratib al-iman wa afdal darajat al-ihsan. inuu yahay martabadaha iimaanka oo dhan kuwa ugu sareeya ka mid yahay iyo inuu yahay darajooyinka ihsaanka kuwa ugu fadliga badan. nabigeenu uu yiri alayhi afdalus salatu wassalaam khayru diinikum alwara. diin ilaahay ku caabudaan oo dhan kuwa ugu wanaagsan ugu khayrka badan ayuu ka mid yahay xalaal miiradku. sidaas darteed qofkii xalaal miirad noqda ee xalaasha raadsada wuxuu helayaa inuu ka mid noqdo min عباد الله تبارك وتعالى. dadka ilaahay sida xaq ah ku caabuda inuu ka mid noqdo qofkaas. sidaas ay tahay maanta waxaynu arkaynaa zamanka aynu joogno in dadkii xalaashii iyo xaaraantii aanay u kala socnayn dadka qaar ka mid ah. rasuulkeenuna yiri fi xadiis sahih alladhi rawahu al-Bukhari يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من حلال أم من حرام. waxay man doona waqti oo bani aadamka ay iskaga qasmi doonto xalaashii iyo xaaraantii oo dadku aanay dan ka lahayn halkay wax ka quudanayaan inay xalaal tahay iyo inay xaaraan tahay falciyaadu billah. sidaas darteed maanta waxaynu ka hadlaynaa waraca iyo fawaaidka uu leeyahay, xalaal miiradka iyo darajooyinka uu leeyahay. xalaal miiradka sida loo noqdo ama xalaal miirad ama sida loo barto sidii loogu dhaqmi lahaa in xalaal miirad uu qofku noqdo. marka martabadaha uu leeyahay ama darajooyinka uu leeyahay waracu ayaynu ugu horeysiinaynaa oo ah inuu jiro warac waajib ah, kaas oo ah in uu qofku wax allaala wixii xaraan ah oo dhan uu ka fogaado iyo wax allaala wixii cadaab ilaahay ku keenaya ama cadho ilaahay ku keenaya, isla markaana qofkaas isagoo falaya la imanaya wax allaala wixii waajibaad ahaa ilaahay ku waajibiyey. midka labaad waxa weeye warac almustahab. waa waraca ilaahay jecel yahay ee mustahabka ah, kaasoo ah ku dayasho lagu daydo warac nimadii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo asxaabtiisa iyo taabiciinta iyo tabacu taabiciin. kaasoo ah qofku inuu ka fogaado wax allaala wixii shubuhaat ah oo dhan. macnihi waxa weeye wixii xaaraan shubha, wixii xaaraan u eg, wixii makruuh u eg inuu qofku ka fogaado oo ka durko, isla markaana qofka waracaahi uu waxyaabo mubaax ah mararka qaarkood uu ka tago haddii uu ka cabsado in waxa mubaax ah uu ku hogaaminayo qofka bani aadamka ah in uu xaaraan ku dhaco ama makruuh ku dhaco ama in uu qalbigiisa arinta mubaax ah ay ku hogaamiso in ay cibaadadii waajibka ahayd uu qofku gudan waayo. sidaas darteed imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah oo salafka aynu ku dayanayno kamid ah wuxuu tagay Yaman buu tagay mar si uu cilmiga xadiiska uga soo qaato Abdurrazzaq as-San'ani rahimahumullah. labadoodaba Allah ka raali hadnay. dabeetana Ahmad ibn Hanbal ayaa nafaqadii ama zaadkii uu sitay baa ka go'ay. madiibad uu lahaa ayuu nin ka rahmay oo uu yiri war in yaroo lacag oo aan bariis siisto igaga rahan. dabeetana ninkii lacagtii uu siiyey madiibadii buu kaga tagay. ninkii uu
مديبدا u dhiibtay baa yiri bal Ahmed ibn Hanbal ayaan imtixaanaya ama aan ogaanaya qiyaasaya waracnimadiisu xalaal miiradnimadiisu intay la eg tahay kabacdi markii uu imaam Ahmed ibn Hanbal soo celiyay lacagtii ee uu rabay inuu madiibadiisi qaato ayuu ninkii ku yiri labada madiibadood ee halka yaala ninkii wuxuu soo qaaday meesha ka dawaan dhaafay madiibadiisi uu eg ayuu soo qaaday dabeetana labadii madiibadood meel ayuu dhigay markuu yimid lacagtii uu ka amaahday u soo celiyay ee uu madiibadiisi damcay inuu qaato ayuu ku yiri madiibadaadii labada mid ay ahayd garan maaye adiga garanaya tay ahayd qaado imaam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah waracnimadiisu waxay gaadhay in labada madiibadood ee isu eg uu ka cabsaday in uu qaato tii khaladka ahayd waa arin yar oo basiid ah inaga marka la inoo eego balse dadka ahlul waraca waxa weeye wax inta la eg oo aan xaqooda ahayn wax inta la eg oo shubha ku jirto wax inta la eg xalaal uray iska dhaafin xalaal yihiin xalaal bay aamin waxaan leeyahay xaraam uray ama makruh uray way ka dhaqaaqayaan dadkaas la rabaa inaynu ku dayano insha Allah ta'ala oo aynu talaabooyidkooda raacno أعلى مراتب الورع درجة ugu sareysa ee مراتب الورع oo dhan waxa weeye inuu qofku xuduud ilaahay jeexay xad laynku ilaahay jeexo xad ka dhigtay sidaynu hore u soo aragnay laynkaas oo ah xadka ilaahay oo ah halka ay xalaashu ku dhamaato isla markiibana halka ay xaaraantu ka bilaabanto qofkii taa ilaaliya ee sidii Allah yiri subhanahu wa ta'ala تلك حدود الله فلا تعتدوها حدود إلا واتها سيدين سو شيغناي حلقدي هوره ee hadhaafina ku xad gudbina تلك حدود الله فلا تعتدوها حددك إلهي وقواس لكن ha u dhawaanina Ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala Ahmed ibn Hanbal yarqi madi lamidaha uma rabaan inay u dhawaadaan wax kaliya oo aan xalaal 100% aan ahayn waayo rasuulkeena yiri fi الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في المستدرك خير دينكم الورع دين إلهي كعابدان oo dhan kuwa ugu wanaagsan waxa kamid ugu khayrka badan inuu qofku warac noqdo inuu xalaal raadsi xalaal miirad inuu noqdo waxaynu kala ku daraynaa intaas in uu jiro warac faasid ah warac aan sax ahayn ama qalad ah dadku u malaynay inuu warac yahay balse aan warac ahayn oo qofkii bani aadamka ahaa ee ku dhaqmayay ku kalifayay inuu waajibaad dhinac maro halku maxay ahayd waracnimo ka heli lahaa warac faasida weeye kaas waxa kamid ah qof bani aadam ah oo imaam ku daba tukan jiray arkay midalan isagoo sigaar cabaya dabeetana qofkaas goostay inaanu imaamka ku daba tukanin isagoo u malaynaya waracnimadiisa faasidka ah ku daba tushkada oo ku daba tukanayo inay tahay wax maxay ahayd de xaraan weyn ah oo isagii ay ku kalifto in uu salaadii uu ku daba tukanayo jamac ahayd gooyo oo gurigiisa ku tukado salaadii jumca inaanu ku daba tukanin midalan imaamkii sigaarka cabay ee warkay marka ay ku kalifto waracnimada qaladkay in uu jamacii iyo jumcadii ka tago salaadii jamac ahayd iyo salaadii jumcaha in uu qofkii ka tago isaga oo isu malaynaya sigaarka qofka cabayaan ku daba tukanayeen inay waracnimo tahay ba ayaa kamid ah waxa kamid ah oo kale qof bani aadam ah oo aabihii dhintay oo aabihii deyn lagu lahaa oo isaguna wuxuu kaga bixiyo haysta balse qalad uu fahmay dartii u malaynaya in lacagtiisa xaraan yar oo ku jirtay ama uu ka shakisan yahay inaanay kulligeed xalaal ahayn ka bixin waaye aabihii isagoo u malaynaya hadduu kaga bixiyo deynta aabihii in aanay ka baxaynin deyntaasi waa warac faasida Allah inaga ilaaliye waxay markaa aynu u baahannahay walaalayaal in aynu baranno sida warac loo noqdo in aynu ogaano waracu wuxuu yahay in aynu hubkii ama toolskii warac uu u baahan yahay
in aynu adeegsano. sidaas darteed qodobka labaad aynu ka hadlaynaa waxa weeye siduu qofku u noqon karaa warac, sidee buu u noqon karaa qof xalaal miirad ah. waynu ognahay wax kastoo adduunyada aanad hore u haysanin waa inaad barato. haddaad doonayso inaad nijaar ahaato waa inaad tuulkii nijaarka, inaad miishaartii iyo dubihii iyo masaabiirtii hesho. haddaad wastaad noqonayso waa inaad malqacadii iyo tii lagu maxay ahayd simayey gidaarka iyo cilmigeedii raadsato. waxa ugu horeeya oo dhan in warac la noqdona wuxuu yahay in aad cilmigii, xataa aaladda ka hor waxa ka horeeya inaad cilmigii waraca barato. imaam ibnu taymiya raximahullah oo inoo sheegaya sida warac loo noqdo wuxuu yidhi alwarac wuxuu yahay an yatacallama alinsaanu khayra alkhayrayn wa shara sharayn. waa inuu qofku marka hore barto wax allaala wixii khayr ku jiro oo dhan kuwa ugu khayrka badan si uu u sameeyo oo aanay u seegin, uuna ogaado weliba sharu sharayn wax allaala wixii shar ah oo dhan kuwa ugu sii xun si uu uga fogaado oo aanu cadho ilaahay aanu u kasbanin. sidaas darteed mufasiriinta waaweyn ee qur'aanka sufyaan athawri raximahullah oo mar inoo tilmaamayo waracu inaanu ahayn wax aada u adag barashadiisu, wuxuu yidhi oo uu ku soo koobay maa xaaka fii nafsik fatrukuhu, maa xaaka fii nafsika fatrukuhu. wax allaala wixii naftaada shaki ka galo inay xalaal yihiin, wax allaala waxaad u malayso inay xaaraan ama makruuh yihiin, iskaga dhaqaaq buu yidhi. waa arrin fudud buu yidhi. balse maanta imaam addaxaak raximahullah wuxuu yidhi waxaan anigu soo gaadhay adraktu nnaasa wahum yatacallamuuna alwarac wahum alyowma yatacallamuuna alkalaam buu yidhi. waxaan soo gaadhay raggii rag ahaa, dadkii dad ahaa, rag iyo dumarba cibaadka ilaahay ahaa oo maxay ahayd baranaya inay baran jireen baan soo gaadhay buu yidhi. dadkaasu inay baran jireen alwarac, balse maanta dadka jooga waxay bartaan buu yidhi alkalaam, sida loo hadlo iyo hadalka. waynu arkaynaa maanta dhalinyarteennii oo dhami Twitter bay ku jirto, waxaan leeyahay waxay ku jirtaa bahal TikTok la yidhaahdo, dadkii waaweynaa bahal Facebook la yidhaahdo iyo YouTube. iyagii baa hadal gelinaya, macnihii inay wax ka dhegaystaan iska dhaafe, qof waliba wuxuu u tartamayaa siduu isagu hadal u gelin lahaa meeshaas. nas'alu llaha alcaafiya. waxaynu intaa ku daraynaa fawaa'idka uu waracu leeyahay ama xalaal miiradku. waynu ognahay qofku hadduu warac noqdo waa qof nebigiisiiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii iyo taabiciintii ku dayanaya weye. raadkii dadkii raggii rag ahaa, dumarkii dumarka ahaa ee wanaagsanaa ee cibaadada ilaahay ka soo baxay nin ku dayanaya weeye qofkaas. waynu aragnay oo waxa weeye fawaa'idkiisa waxaa ka mid ah inuu nebigu yidhi khayra diinikum alwarac. waa weeye waa darajooyinka ugu sarreeya sidaynu soo sheegnay min iimaan, darajooyinka ugu sarreeya ixsaanka. waxa weeye fawaa'idkiisu sumtun min asmaa'i alcubaad, waa sumad ka mid ah sumadaha lagu garto dadka ilaahay sida xaqa ah u caabuday, kuwaasoo dad ilaahay jecel yahay oo maxabatullaahi tabaaraka wa tacaala ka kasbaday ilaahay. qofkii halkaa gaadhana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, ilaahay uu cibaadadiisa ka adkaaday ee uu xalaal miiradka darajadeeda gaadhay, ilaahay markuu u baahdo wuu u soo gargaarayaa. waxyaabo badan oo aan maanta caqligeenna gelin ayuu ilaahay ku caawinayaa. imaam shamsuddiin ibnu aljazri oo ah culimada tajwiidka ka mid ah ayaa wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo azahru lfaa'ix. kitaabkaas wuxuu ku qoray qiso wanaagsan oo waraca si fiican inoogu maxay ahayd qeexaysa. wuxuu yidhi nin saalixiintii ka mid ah
ayaa isagoo xajaya wuxuu arkay gabadh dawaafaysa markuu dawaafayey oo waxay gabadhaasu leedahay yaa kariim cahdaka alqadiim ilaahay kariimka ahaayo cahdigii waan ka soo baxay cahdigii amqaaday waan ka soo baxay macnii waxa weeye inaan warac noqdo baan isku dayay inaan xalaal miirad noqdo baan goostay waanaan ku taaganahay halkaa weli waan ku taaganahay oo weli ballantii waan hayaabay leedahay deetana ninkii saalixa ahaabaa weydiiyey buu yidhi ibnuljazri oo yidhi muxuu ahaa cahdiga edigiiyo ilaahay idinka dhexeeyey waxay tihi waa qiiso la yaab la weeye doonni baan fuulay anigoo inaan ilmo yarsita dabeetana doonnidii baa qaraqantay dadkii oo dhammi way ku dhinteen anigaa loox helay ilmahaygii iyo anigii baa fuulay looxii nin kalena loox buu helay labada intayadaasaa ka badbaadnay bay tiri dabeetana habeenkii oo dhan looxii baanu dul fadhinay markuu waagi baryey baa ninkii intuu soo dabaashay ayuu looxaygii ku soo booday buu yidhi ayay tiri markaasuu yidhi ayuu dee maxay ahayd damcay inuu igu sameeyo fawaaxish dabeetana waxaan ku yidhi war miyaanaad arkayni yaa cabdallah inaynu balaayo ku jirno oo inaan garan karinba inaynu ka nabadgelayno haddaynu macsi samaynona maxaad u malaynaysaa waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa inuu ina badbaadiye haddaynu macsi samaynayna maxaad u malaynaysaa wuxuu yidhi dacnii fawallaahi laabudda ilaa min dalik idhaaf buu yidhi ilaa arrintaa aan sameeyo mooye wax kaloo i marayaa ma jiraan dabeetana ilmahaygii intuu iga dhuftay ayuu badda ku tuuray bay tihi markaan arkay ninkaasu inaanu joogayn baan idhi bay tihi ducadan akhristaan idhi yaa man yaxuulu bayna almar'i wa qalbih xul baynii wa bayna hada arajul bixawlika wa quwatika inaka calaa kulli shayin qadiir ilaaha qofka bani aadmigaa qalbigiisa iyo wuxuu damco kala dhex galow anigiyo ninkana kala dhex gal baan idhi bay tihi dabeetana ilaahay xawligiisa iyo quwaddiisaan ku baryoon idhi adigaa calaa kulli shayin qadiir adaa wax walba kale eh iga badbaadi ninkan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay tihi daabad weyn oo af weyn ayaa baddii ka soo baxdo ninkiibay liqday bay tihi ee la tagtay dabeetana keliday baa soo hadhay ilaa qoorkii baan imid bay tihi maxay ahayd qoorigii dad taagan baan u imid oo waxay yidhaaheen xageed ka timid dabeetana qisadaydii baan uga warramay waxay yidhaaheen bay tidhi intaa aad sheegtay mid ka layaab badan ayaanu annaguba aragnay waxay yidhaaheen baddaanu anana saaray dabeetana daabad weyn oo ilmo dhabarka ku sida ayaa nagu soo baxday korka iyagana waxaanu ka maqalnay dhawaaq leh ilmahaa qaada haddii kale waan idin halaagayaa ilmihii baanu doonidayadii soo saarnay ilmihii waa kan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilmahaasu ilmaheedii buu noqday ilmaheedii oo baddii ilaahay ka soo badbaadiyey oo dad badda ku jira ilaahay iyo daabad u soo saaray xalaal miiradkii ay ballan qaaday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku taagnayd buu ilaahay ku badbaadiyey ilaahay haynaga dhigo kuwii xalaal miiradka cibaadadaas ah raadsada barto siday u noqon lahaayeen ku dadaala in ay xaaraan wixii ura aan xitaa xaaraan ahayn bal xaaraan ura makruuh ura inay ka fogaadaan ilaahay haynaga yeelo allahuma arzuqna alwara wamla quluubana bitaqwaaka wajcalna nakhshaaka kaannaka naraaka ya rab alcaalamiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu